Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saxiixay 3 sharci oo dhowaan ay meelmariyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. 3 sharci ee madaxweynuhu saxiixay ayaa kala ah Sharciga Cunaqabataynta Maaliyadeed ee Cayiman, Sharciga Hay'adda Sirdoonka iyo Nabad Sugidda Qaranka, iyo Sharciga Korontada Qaranka. Madaxtooyada ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in madaxweynaha uu sharciyadan saxiixay isaga oo xoogga saaraya hirgelinta hannaan dowladnimo oo ku dhisan sharci iyo xeer nidaamiya hay'adaha iyo awoodda dowladda, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. Munaasabadda saxiixa sharciyada oo ku qabsoontay madaxtooyada qaranka ayaa madaxweynaha waxa uu mahadceliyay xildhibaanada Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ee Baarlamaanka. Dal casri ah oo qawaaniintu sareyso ayaan rabnaa dalkani. Dowladdiisa tallaabo kasta oo ay qaadayso, hadday horumar tahay, amni tahay, siyaasad tahay, dhammaan waxay ku saleysnaan doonaan sharciyo, ayuu yiri madaxweynaha. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in wada shaqeynta hay'adaha fulinta iyo sharci dejintu ay horseeday in la dhammaystiro sharciyo badan oo muhiim u ah dalkeena, kuwaas oo ka mid yahay Sharciga Hay'adda Sirdoonka iyo Nabad Sugidda Qaranka oo noqonaya sharcigii ugu horreeyay ee hay'adda tan iyo markii la aasaasay.